oo ilaahay ugu og yahay oo aan ku dambaabin maanta waxaan goob joog u ahay sheekadaas hadda kor waa ka sheekay hadda korna waa ka sheekay waxaan goob joog u ahay magaalada marka anoo jooga oo ka shaqeeya hay'ad sanfar u shaqeeya ayaan waxaan goob joog u ahay cid reer xamar ah oo ciidaha cadcadka ah oo guri laba dabaqa marka ku leh ayaa waxaa qabsaday nin mooriyaan ah oo beesha cayr ah ayaa qabsaday ninkii markuu qabsaday gurigii oday islaantii caruurtii gabdhihii ayuu isu qabsaday guriga dabaqa labaadu isugu dagay dabaq hoosan ciddaa degan habeen walba gabdhaha ciddaas u jooga ee odaga iyo habartu ay dhaleen ayuu wuxuu yidhaahdaa caawa gabadhaas kor halay soo saaro caawa taas halay soo saaro midda caawa loo soo saaro maahane habeen dambe tukalu leeyahay heblaaye waxaan arkay ma rabe heblaaye kale halay soo saaro gabdhihii guriga ku dhex rafaadsaa ciddii dhashana gurigay dhex degan yihiin sidaas soo u joogay oo saas noloshiis oo ahayd ciddana oo baado gabdhahana ka fuulo guriga dabaqaan u seexdo yaa waxaa la wariyaa doqona tahay cidda waa reer xamare dahabay haystaane dahabka ka qaado habeenkii daba qorigiisu soo qaatay ciddii safuu gashay wuxuu yidhi dahabka aad haysaan keena gasaca caana niidada lagu keeno gasaca caanaha niidada ama caana koostaa lagu keeno midka nuskiilada ah oo rubaca kan rubaca ah oo dahab ku jiraan silsilado iyo jijiman iyo faraantiyaal ku jiraanay dheheen intaana xandhii xoole ka haysanaahe walaalow qaado intii buu ka qaatay wuxuu waa dhoofayaa dibaddan aadaya marka waa ciddan lacagna waa ka helay muddana waa la noolaay ilmihiina waa ka fulfuliyey waa gasii caana boraha muusow ninkii wixiisow jajabsaday waa ka dhoofiyey nin kale oo isla beesha cayra laakiin laba lafood kale ah ayaa gurigii asla qabsaday oo sida kii uu yeeli jiray yeelay sida kii uu yeeli jiray asla yeelay kii sacuudiga inta aaday waa xoolo xaaraan ahe yaa la soo qabtay oo dhegta lagu soo dhigay lasoo tarxiilay haddii lasoo tarxiilay shaqo kale iyo camal kale ma yaqaane wuxuu yidhi alla ilahi ciddii reer xamarkaa ku noqo ciddii hadduu ku laabtay ciddii nimaa la jooga asna mooryaan kaleo qori wataa la jooga labadii nimaa isdirirtay labadii nin ayaa isdirirtay waxay isku dirirayaan gurigan anaa haystay oo weligay anaa haystay iyo adigu waa ka dhooftay anaa gadaashaa guriga qabsaday adigu waa ka tagtay anaa haysta arrintaas iyada ah marka waxaan ku ogaadaa idiin sheegaa marka labadii nin ayaa gartoodii la galay labadii ninoo guriga isku haysatay cidda degantaa reer xamarka degantoo gabdhaha ay ka fulfuuleen ayaa gartoodii la galay labadii jirib ay ka dhasheenoo beesha ceyr ah labadii jirib ay ka dhasheen ayaa gartoodii la galay meel qofkii marka tagaa yaqaanee baarkii baar bulsho la dhihi jiray oo dalxiisku uu lahaa oo xarunta mataqaanaa gobolka ka soo horjeeday waad ogtihiinoo geedo waaweynoo haraho tallaalo lahaa baarkaasaan fadhiyey odayaashuna geedahaas meeshaasay garta ku galayeen markaasaa halkayga anigu shaah ku cabaya dhegtana ii dheeradoon waxaan dhegaysanaya waxa laga hadlayo markaasaan waxaan ogaaday arrintaas iyada ah odayaasha garta galaya marka gartaas odayaasha galayana yaa odayaashaas garta galayana garta u geli maayaan cidda masaakiinta ee la haysto ee gabdhaha laga kufsaday ee dahabka laga qaatay laga hadli maayo waxay ka hadlayaan hebelaa guriga shalay joogi jiray iyo hebloobaa joogi jiray iyo hebel baa gar daran
oo maxaa keenay wuu ka tagay maxaa keenay iyo hebel baa mataqaan ilaaha idinku dhaashay